kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 458 ee barnaamijka Tubta Nabadda idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faisa maantana waxaan barnaamijka uga hadlaynaa safarka dimuqraadiyadda Soomaaliya caqabadaha uu wajahayo iyo rajada mustaqbalka. tani waa arrin ku soo beegmatay waqtigii ku haboonaa Cabdi Casiis sanad kasta 15 Sebtembar waxaa caalamka laga xusaa maalinta dimuqraadiyadda adduunka. Dimuqraadiyaddu waxay ku saabsan tahay xorriyad, doorasho, cadaalad, sinaan, xuquuq aadane, dawlad wanaag iyo sareynta sharciga. Qiyamkani waa kuwa dadka siiya cod, taageero inaan ruuxna laga tagin, sidoo kalena dhisa kalsoonida. safarka dimuqraadiyadda Soomaaliya ma ahayn mid sahlan kadib markii ay Soomaaliya hanatay madax bannaanideeda sanadkii 1960 waxaa dalka soo maray xukun dimuqraadi ah oo kooban kaas oo la soo afmeeray kadib afgambigii military ee sanadkii 1969 ha yeeshee dawladdaasi dhexe waxay dhacday sanadkii 1991 iyadoo kadib uu dalku galay marxalad maamul la'aan ah. laakiin waxay xaaladdu isbedeshay sanadkii 2000 hogaamiyaasha Soomaalida ayaa ku heshiiyay nidaam maamul oo cusub iyadoo ilaa ay waqtigaasi ay dhaceen waxyaabo badan oo wanaagsan oo ay ka mid yihiin doorashooyin dadban iyo awood si nabad ah loogu kala wareegay. waa run midaasi Faisa wax ka qabashada musuqmaasuqa shuruuc ku salaysan cadaalad iyo hay'ado dawladeed oo si wanaagsan u shaqeeya ma ahan fikrado wanaagsan oo kaliya balse waa lafdhabarka nabadda iyo xasiloonida. dimuqraadiyaddu waxay ku saabsan tahay dadka. Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah bulshooyinka adduunka ugu dhalinta yar in badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. dimuqraadiyaddu waa ay ku cusub tahay, taasina waa sababta ay muhiimka u tahay wacyigelinta bulshada, ka qaybgalka haweenka iyo dhalinyarada ee hanaanka dimuqraadiyadda. qaramada midoobay waxay sidoo kale qayb ka ahayd safarkan iyadoo Soomaaliya ku taageeraysay dhexdhexaadin, wacyigelin iyo aqoon farsamo xilliyada doorashooyinka. haddaba dhageystayaal si aan mowduucan wax badan uga ogaano waxaa maanta stuudiyaha nagula sugan Saadaad Maxamed Nuur Caliyow, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, iyo Cismaan Muxyidiin Shaatax, gudoomiyaha dalladda jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliya Sonsa. mudane wasiir, haddii aan adiga kugu bilaabo, maalinta dimuqraadiyadda adduunka ee sanadkan waxaa loo dabaaldegayaa xilli Soomaaliya isku diyaarinaysa doorashooyin soo socda. marka si fudud loo sheego, muhiimad intee leeg ayay dimuqraadiyaddu u leedahay Soomaaliya, maxayse yihiin astaamaha muujinaya horumarka ee Soomaaliya ka sameysay dimuqraadiyadda? runtii saa oo socoto Soomaaliya waxaa ugu dambeysay doorasho dimuqraadi ah waqtigii ku dhawaad 54 sano ka hor. Soomaaliya saa la socoto burburkii xukuumaddii militariga ahayd markay dhacday 91 kadib Soomaaliya waxay gashay xaalad hubitaan la'aan ah. 10 sano kadib 2000 ayaa waxaa isugu tagay waxgaradka Soomaaliya waxay isugu tageen Carta. meeshaas ayaa waxaa kasoo bilaabday jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya lagu soo dhisay. kadib ilaa ay hadda la joogo maanta la joogo 2025 waxaa isbedelay dhowr madaxweyne ilaa iyo 4 madaxweyne. madaxweyne kastana balanqaadkiisa waxa uu ahaa in uu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. anaga ka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku dadaalnay in waxyaabaha instrumentiga ah oo loo baahan yahay doorasho lagu gali karo haddii aan lahayd sharciga doorashada, haddii aan lahayd ururada siyaasadda oo doorashada ka qayb galayo, haddii aan lahayd nidaamka doorashada iyo guddiga doorashada sharciyadooda waxooda dhan waa baas gareynay. xukuumadda waan ka baas gareynay dood dheer kadib baarlamaanka golaha shacabka oo ka gudbay, kadib wuxuu u gudbay golaha aqalka sare. sida ayuu hadda waxa ku yahay guddi doorasho sharci ah iyo sharci doorasho iyo sharci nidaam xisbi nidaam ururo oo marka dambe isku bedeli doono xisbiyo. intaas dhan waxay diilo iyo aragti iyo fursad u tahay dimuqraadiyiinta doorashada Soomaaliyana dadka maanta hadda magaalada Muqdisho waxaan qorsheynaynaa inay ka bilaaban doonto doorashada October dhamaadkeedii. waxaan la rabaa golaha deegaanka lagu bilaabo. golaha deegaanka marka lagu bilaabana waxaa lagu xojinayaa maamul goboleedyada, kadibna saas ayay u soconaysaa. degmooyinka marka laga bilaabo gobolka la gaarsiinaa, maamul goboleedyada isteedada la gaarsiinaa, kadibna xildhibaanada federaalka ayaa ku xigaya, kadibna madaxweynaha Soomaaliya ayaa doorashadaas loo galaa. saas ayay ku socotaa. intaasoo idil waxay tusaale ku tahay iyo dadiilo dimuqraadiyiinta Soomaaliya ee doorashooyinka ah inay ifaalin fiican ku socdaan. Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed oo saameyn kara doorashooyinka, dawlad wanaagga, xasiloonida iyo horumarka. haddaba maxay sameynaysaa wasaaradda arrimaha guduhu si loo xaqiijiyo in dimuqraadiyaddu ay kobocdo iyadoo ay jiraan caqabadahani?
waxaa loo kobcin karaa dimuqraadiyada waxay tahay meeshan waxaa yaalo oraa oo hadda kahor madaxweynihii Soomaaliya yiri Cabdirashiid Cali Sharmaake dalka ma qoftay oo dalka aad dagaal ba'an ugu jiray aad u xoogan dagaal ku jiray 64kii wixii dagaalkii dowladda Itoobiya nagu soo qaaday dalka ku jiray dagaal aad u xoogan ugu jiray dalka Soomaaliyana markaas oo dhismayay oo awoodo xoog badan ma lahayn dhidabada systemka dowladda Soomaaliya dhidabadeeda si fiican ma u taagnayn walow aan ciidan lahayn marka waxaan kaga faa'iideysanay hadal waxaan aniga halbeeg hadal uu yiri Cabdirashiid Cali Sharmaake waqtigaas wuxuu yiri gacanna doorashaan ku galeynaa gacanna cadowga iskaga difaacaynaa marka dimuqraadiyada waxaan ku kobcin karnaa go'aanka dowladda Soomaaliya ku dhiirinaanta dalka inaan doorasho qof iyo cod la geliyo cadowga dalka haystana gacan la iskaga celiyo aan loo joojinin doorashadana gacanta kale lagu galo inta deegaanada dowladdu maamushana doorasho qof iyo cod laga geliyo sidaas ku dhiirinaantaas iyo go'aankaas dowladda Soomaaliya qaadatay ayaa lagu kobcin karaa dimuqraadiyadda Soomaaliya ugu dambeyn saaxiibada caalamiga ah sida qaramada midoobay ayaa taageero geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya maxaad ku tilmaami lahayd wada shaqeynta maxayse tahay taageerada loo baahan yahay mustaqbalka taageerada beesha caalamka Soomaaliya waa mid aad iyo aad u ballaaran haddaan nahay dowladda Soomaaliya haddaan ahay wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha runtii waxaan halkaan rabaa inaan ugu hambaleeyo taageerada caalamka oon joogsi aan lahayn Soomaaliya markii ay gashay dhibaatada iyo xaaladda aad u adag geedi socodka Soomaaliya markii Soomaaliya la isku imaan waayay aad u adkaatay burburkan ku dhacay 1990kii Soomaaliya la isku imaan waayay beesha caalamka dadaalkeeda marna ma go'in Soomaaliya haddii aan lahayn beesha caalamka maanta meesha soo gaartay ma gaari lahayn sidoo kalena anagu waxaan rabnaa inaan ka sii codsano beesha caalamka Soomaaliya waxay go'aansatay in dalka Soomaaliya oo u jeesto dhinacaas iyo doorasho qof iyo cod ah waxaan rabnaa in arrintaasiti awal bisay ganoo garab taagneed garab nagu siinaysay haddana inay garab nagu siiso wixii facilities ah holaana inay dowladda Soomaaliya u garab istaagto beesha caalamkana shalay waan garab taagneed maanta waxaan ka codsanaynaa dimuqraadiyadaas iyo doorashadaas qof iyo cod ah iyo himiladaas fog Soomaaliya inay gaarto fikirkaas inay caalamka ka gado ayaan rabnaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dadaalada beesha caalamka ee mar walba la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Saadaad Maxamed Nuur Caliyow wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo marti inoogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda welina dhagaystayaal waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Tubta Nabadda balse imikana aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Cismaan Muxyidiin Shaatax gudoomiyaha dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliya Sonsa wuxuu ugu horreyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sifooyinka dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo arrimaha loo baahan yahay in la xaqiijiyo si loo gaaro dimuqraadiyad si buuxda dalka uga hirgasha dimuqraadiyadda Soomaaliya ka jirta waa mid ordon ah oo aad moodo in hadda laga soo kabanayo dagaal sokeeye bilow ah ilaa haddana aad moodid in ay maaragtaa sida ay ku socoto ay tahay mid mabda'iyan ku taagan jidkii dimuqraadiyadda laakiin practically aad moodid in xoogaa waxyaaba badan ay ka dhidhaman yihiin marka aad fiirisid meelaha laga qiimeyn karo oo la dhihi karo Soomaaliya dimuqraadiyadeeda waa socotaa way jirtaa waxaa ka mid ah doorashooyinka oo markii mataqaanaa xilka si peaceful lagu kala wareejisto markastana doorasho la qabto oo isbedel badan uu dhacay taa waxay qayb ka tahay maaragtaa inay muujinaysaa in dadku dimuqraadiyadii ay shaqaynayso walow meelo badan ay u baahantahay in lasii xoojiyo sida maaragtaa dastuurka sida ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo sida mataqaana xorriyatul qowlka oo runtii dadka siyaasadda u dhaqaaqa ama dadka fikirkooda inta badan jeeda ay shaqeeyaan waxaa kaloo aad usii muhiimsan in lasii xoojiyo nidaamka doorashooyinka oo marka la waafajiyo sida dastuurka uu qabo taana waxay tahay mid maaragtaa meesha u baahan in lasii xoojiyo sidoo kale shirka hadda u dambeeyay oo Embakasi Kenya lagu shiraayay waxyaabihii laga heshiinayay ama laga hadlayay in inta badan ahaayeen waxyaabo markaa lagu qancinayo hogaamiye kooxeedii oo saameyn ku lahaa shirkaas marka go'aamadii waagaas la qaatay waxay ahayd in dib loo eego waxyaabo badan oo aan shaqaynin hadda oo waagaas la go'aansaday oo jira in wax laga bedelo waxyaabo waagaas in la go'aan la qaatay ahayd oo aan la qaadan in hadda mataqaan laga fikiro sidoo kale dhamaystirka dowladnimada oo nidaamka federaalka la qaatay oo ahaa
mid runtii saddex heebar kala lahaa oo ah federaal heer maamul goboleed iyo heer degmo waxaa moodaa in aada loo gaabiyey in la dhammaystiro degmooyinka waana meesha ugu habooneed oo markaa ka dhamaystirmaysa dowladnimada isla xisaabtanka dowladnimada ka bilaabanayay transparencyga dowladnimadana mataqaanaa ay ka bilaabanaya waana waxyaabaha lagu garto nidaamka dimuqraatiga inuu jiro mataqaanaa in la ilaalinayo xuquuqda aadanaha inuu mataqaanaa ay ka mid tahay xorriyadda qolka inuu jiro inay ka mid tahay xaq dhowrka dadka inuu dhaqaaqi karo in free movement siyaasadda inuu jiro marka runtii waddo dheer aan sugayso dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca Soomaaliya markaa qiimaysa bulshada rayidka waa kaabada ama boondada isku xirta bulshada iyo dawladda haddaba maxaad sameynaysaan si aad u xaqiijisaan dadka go'aamada gaara inay maqlaan codka muwaadiniinta waa su'aal fiican runtii sida hadda aan sheegay shacabka meesha ay dawladda kaga xirmi karaan waa dawladaha hoose waay maxaa yeelay dawladaha hoose waa meesha ugu dhow ee shacabka ay gaari karaan waay maadaama dawladihii hoose ee sidii la raba aysan ahayn bulshada daanahay waxaan advocacy badan u sameynay sidii loo dhamaystir lahaa dhismaha dawladnimada heerka dawladaha hoose aad loo xoojin lahaa waxaan xasuustaa prime minister Xamse maalinkii la magacaabay shirka ugu horeeyay aan la qaadanay intaanu xataa golo wasiir soo dhisin waxyaabaha aan kala talin waxa ku jirtay in golayaasha deegaanka la dhiso la xoojiyo si mataqaanaa ee dawladnimada u dhamaystirmato koow labo in marka shacabka codkooda meesha laga maqli karo ee tahay dawladaha hoose oo gaari karo heerka mataqaanaa ee federaal intaa xoogga la saaro muddadii ay horta caqabadahan ay jireen oo dawladaha hoose ay dhamaystirneen runtii bulshada rayidka waxay aada ugu dadaalnay inaan abaabulno foorumyo oo markaa aan dadka muwaadiniinta ah codkooda lagu maqlo ku casuulno mataqaanaa madaxda inay markaa kasoo qayb galaan foorumyadaas iyadoo oo loogu doodayo baahiyaha markaas dadka ay qabaan sidoo kale inaan baarlamaankii xubnihiisa aan gaarsiino tallaabooyinkaasaa qaadna laakiin meesha ugu habboon oo bulshada kaga xirmi karta dowladnimada waa golayaasha deegaanka oo dowladaha hoose waana meesha ugu muhiimsan in la dhammaystiro dowladnimadan ay ka dhiman tahay ugu dambayn maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ay ciyaarayso si loo xaqiijiyo in dhalinyarada iyo haweenka lagu daro safarka dimuqraadiyadda Soomaaliya runtii marka laga hadla horta haweenka waxaan qabanaa barnaamijyo la yiraahdo ka qaybgalka siyaasadda haweenka waxaan kaloo qabanaa ka qaybgalka maamulka oo doorka haweenka ee maamulka dawladda maxaa yeelay siyaasad kaliya ka qayb galaan maaha waxay u baahan in maamulada xataa ka qayb galaan oo dhinaca administrationka ay wax ka qabtaan dhinaca dhalinyarada runtii abaabul waa sameynaa oo xoogan oo dhinaca dhalinyarada ku aadan oo ah foorumyada aan qabano inay aada ugu soo qayb galaan iyagoo markaa su-aalo weydiinayo talooyin dhiibanayo markii laga hadlayo dowladnimada iyo maamul wanaageeda marka laga hadlayo nabadeynta sidoo kale waxaan sameynaa guddiyo nabadeed oo heer degma oo markaa dhalinyarada iyo haweenka qayb ka yihiin si ay ugu qayb qaadan lahaayeen nabadda oo kaalintooda ay u muujin lahaayeen waxaa kaloo aan sameynaa in dhalinyaradu markaa aanu tababarno oo tababaro loo sameeyo tababaradaas iyata oo qayb ka naqanayo inay noqdaan dad sameeyo mataqaanaa ku biiriyo bulshadooda wanaag meesha ay ku biiri lahaayeen xumaan taan waxyaabaha aan diiradda saarna ayay qayb ka tahay waxyaabaha kale aan sameyno waxaa ugu muhiimsan waxay tahay sidee maaragtaa dhalinyarada ay haweenka ugu qaybgeli lahaayeen arrimaha siyaasadda taa oo marka aan fursad u siino inay mataqaanaa ka qayb galaan doodaha ama shirarka loogu hadlayo arrimahaas iyata inaan fursad u siino ay ka qayb galaan marka intaas ayaana inta badan aan xooga saarnaa laakiin wax badan oo intaa ka badanna waa loo baahan yahay inuu sii qabto aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Cismaan Muxuudiin Shaatax gudoomiyaha dalladda jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliya Soonsa oo barnaamijka tubta nabadda marti inoogu ahaa balse iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan hees ka hadlaysa muhiimadda nabadda oo inoo qaadayaan qaar ka mid a fanaaniinta Soomaaliyeed gobonimada nabadiyo gunnimada colaade kala gara dadkaygo gacan nasiya nabadda
gobonimada nabadiyo gunnimada colaadeen kala gara dadkaygo gacanna siiya nabada coladi waa gune garwaaqsaday nabadi waa gobe kuguntada hoy hoy coladi waa gune garwaaqsaday nabadi waa gobe kuguntada coladi waa gun nabadi waa gob coladi waa gun nabadi waa gob nabadi waa gobe kuguntada nabadi waa gobe nabadi waa gob nabadi waa gobe kuguntada waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubnay heestaasi ka hadlaysay nabadda waxaa ku luuqeynaya qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed waxay ugu dambeysay barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa bartaan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan